You are not here to be average. halkan uma joogtid inaad ahaatid average, in aad ku noolaataan nolol iska dhexdhexaad ah, nolol maxaa leedahay yacni oo magarata dhiman noolaan ah. adigana waa ogtahay, anna waa ogahay, ilaahi subxaana watacaala waa ogyahay daa in aad rabtid inaad ku noolaatid nolol yacni comfortable ah, nolol aad ku qanacsan tahay, nolol aadan ka walwalaynin, aadan ka fikiraynin maxaad maanta ku quraacan doontaa, maxaad ku qadan doontaa beri, maxaad beridan ku quraacan doontaa, xaggeed ka keeni doontaa kirada guriga, waxaad iskaga bixin lahayd magaranaysa. haddii dhib ilaahay ma keenay wax imaadaan wax emergency fund yani emergency fund meel aad yani wax aad keed ma leedahay oo magarasa wax haddii dhib imaada ilaahay ma keena. marka you are not here to be average, uma joogtid halkan inaad ahaatid average. qof walba aniga kula hadlayo, qof walba wuxuu rabaa inuu ku noolaado nolol comfortable ah, nolol cabsi badan iyo walwal badan lahayn, iyo taasoo ah dee saa hor u sheegay maxaad maanta cuntaa, maxaad beri cuntaa. inteena badan marka waxaan isku maaweelna oo aan isku qancinaa daa inay lacagta in magaratay yani maadaama aan seegnay mas-uuliyadana saarneed, maadaama aan seegnay يعني جانسياشي iyo fursadihii loo baahnay inaan qabano waqti hore ka hor ama xilliga aan yareen oo tabarta lahayn oo xoog badan lahayn. hadda maadaama ay da' noqonay, waqtiga naga daba imaaday, aan leenahay shalayta iyo walwal iyo fikir iyo magartay oo aan ka shalaynayna iyo cabsi mustaqbalkeeni markaan yareen hooshii aan gabnay oon seegnay, mas-uuliyadana saarneed aan dayacnay anakoo isleh waqtigan haynaa caadi waxaan samayn karaa soo kay beriyaan yeela maadaama uu waqtiga naga daba yimid, tabar badan iyo xoog badan aan lahayn, da' naga daba timid, waxaan isku daynaa inaan nafteena ku qancina in magaranaysaa dee waxaan iska caadi tahay lacagta badan dadka ay xumayso. haddii aad hantiilo noqotid, haddii aad magac yeeltid, haddii aad lacag yeeltid, in lacagtaas aad ku fasahaadayso, aad ku dhumayso oo aad duurka ku galayso. dadka masaakiinta inta badan oo dadka yani ku nool xaaladda yani hadhimaha noolaan ah iyo xaaladda faqriga intooda badan waxay iskugu sheekeeyaan oo arawan lacag lacag badan ma rabi, arawan magaranaysaa inaan magarata aan noqdo hantiilo, sababta waxaan ka yaabaa inaan duurka gala, inaan halaabo, inaan ku saaqeedo. aniga kula hadla ahaa wallahi markaan yara qaxootiga joog waxaan dhihi jiray lacag badan waa lagu halaaba, waa lagu fasahaada lacagta haddaa yeelid, ma haddaa hantiilo noqotid, haddaad maal qabeen noqotid, duurkaad galaysaa, waa fasaaqidaysaa, waa fasahaadaysaa. yani waxaan ka qabnaa cabsi inaan lacag yani lacag haddaan yeelan ama lacagta badan waxaan ka qabnaa cabsidaasoo ah amaan ku fasahaadna oo aan duur ku galna. taasaa keenaysa dadka intooda badan inay yihiin inay ku jiraan nolol dhimaha noolaan ah, ama ay wax fiican ama wax badan ayna haysan. inkastoo la kala roon yahay, laakiin inta badan marka loo fiiriyo dadka 100% ma aha maal qabeen, 100% ma aha hantiilayaal, 100% ma aha dad magac ku dhaxleys ummadda, dad la yaqaana ma. waxaa kaloo haddii maanta dhintaan familkooda iyo dadka asxaabtooda, dadka kaaga dhow iyo daraskooda baad laga yaabo inay gartaan dad ma aha maanta laleey oo hebelaa ka tagay, hebelaa dhintay, dad oo la tabayo magartay ummadda geeska wadan loo soo duceynayo maaha, lama yaqaana. sababtoo ah qof walba marka xaqiiqada isu sheegno aan been iyo khiyaal iskugu sheekeenin, qof walba ma rabo inuu ku jiro nolol dhiman noolaan ah, qof walba ma rabo inuu ku jiro nolol zagzag ah, qof walba ma rabo inuu ku jiro nolol maxaa leedahay yani dee magaranaysaa dee aadan ummadda meesha ka muuq ama ka maqnaa leh ummadda dee magaranaysa aan marka qof walba waxaabay wuxuu rabaa in at least uu ummadda ku dhex yeesho saameyn haba yaraatee wax yarba Allah ka dhigay, in ummadda ka dhex muuqdo, daraskiisa ka dhex muuqdo, xaafadiisa ka dhex muuqdo, meesha uu joogo ka dhex muuqdo, afar qof yani haba yaraatee saameyn inuu ku dhex yeesho ummadda iyo magarad dadka agdhow, dadku ka agdhow. inteeda badan anagoo sidaa u og baa haddana ismoojisiina oo aan been iyo khiyaal iskugu sheekayna, taasoo ah oo isoo ka caada dhib malaha waqtigaan haya, beriyaan sameynaa, beri dambaan sameynaa. haddaa hadda dib u fiirisid waxaa laga yaabaa 10 sano ka hor go-aan aad gaartay waxa aad rabtay inaad samaysay, oo haddana asriino maybe waxaan 5 sano 10 sano inaan gaaro ilaaha oga magarta, ama 3 sano ka hor ama 4 sano ka hor, oo hadda dib u fiirisid aad laga yaabaa inayba ka badan tahay. taas waxay ku tusaysaa oo daliil u tahay time waits no one, waqtiga inuusan cidna sugin. qoraxda way soo dhacaysaa, way soo baxaysaa, way dhacaysaa, adigana kuma sugaysa, anigana kuma sugaysa, wada haddaad hawsha qabatay, haddii hawsha aadan qaban, iyo haddii aad waqti gelisid hirgelinta hadafkaada iyo qorshayaashaada. marka
waxaa loo baahan yahay samir, waxaa loo baahan yahay inaad naftaada been iyo khiyaali ugu sheekeen, waxaa loo baahan inaa ilaahay subxaana watacaala tustida ina waxaan daacad kaa tahay, ina waxaan serious kaa tahay, in dhab waxaan ay kaa tahay, inaad u sameynin waxaan istusnimo iyo lagaa sheegay iyo magaranaysa, and you are willing to pay the price, oo ay kaa go-ontay inaad rabtid inaad bixisid qiimaha haba yaraata, qiimo walba ay ku kacaysa waxa yaraata ha weynaataa, in ilaahay subxaana watacaala aad tustid that you are committed, inay dhab kaa tahay, daacad kaa tahay. soo waxa kartama habeen iyo maalin iyo casr iyo duhur aad ka fikiraysa, aad ku guda jirto sida aad u horgelinayd hadafyaashaada iyo qorshayaasha aad ka leedahay nolosha. marka ilaahay subxaana watacaala qalbigeena qalbadeena qulubteena u arkay daalacanaya. soo waxa kartama adiga been khiyaalo iskugu sheekayn kartaa, dadka kale been khiyaalo ugu sheekayn kartaa, laakiin adiga faldan iska ilaalina naftaada been iyo khiyaalo ugu sheekay, sababtoo ah maalin maalmaha kamid ayay kaa daba imaanaysaa, wayna ku qaninaysaa. maanta haddii aad naftaada been khiyaal ugu sheekaysa ama aad ka maraataysid howl maanta aad qaban lahayd oo magaratay si beri aan ugu walwalin, oo aad hoosh faraha ka qaadaa, ama arrin loo baahay maanta in lasoo afjaro si arrintan ay u dhamaato beri oo lagu wada noolaada nabad iyo magaratay galgacayl. haba ahaata in maanta lasdigaalo, maanta lasdilo, maanta la marmo, maanta la buuqo, dib waa laga heshiin doona, xal unbaa imaan doona. marka adigiyo ku raadinaya wixii xal iyo magaratay oo caada dhimala waxaan iska dhamaan doontaa wixii marka they pile up, waa iska kormaan hadhowt meel aan laga qaban tagi doono. marka waxaad ku qasbanaanaysaa in aad samaysid hadda, ayadoo lisnacay, laisku wajigubtay, meel ka daran arrinta ay marayso, magaratay dharkiisa u tuuraysa ay bateen. soo waxaa kartama waxaa marka aad ku qasban tahay inaad hadda gashid. marka laba jeera faka maysid, ama hadda yeesha ama hadhowta yeesha, way kaa daba imaanaysaa hoosha. soo waxaa kartama marka inteena badan waa ognahay in aan nolosha ka leenahay hadaf iyo qorsho, in aan meeshaan u joogno inaan ka tagno sumcadii sharaf iyo magac marka hadhowta dhimana, inaan ummadda ku dhex lahaana saameyn, inaan ummadda ka dhex muuqano haba yaraatee. haddana anko saas u eg baan waxaan isku nafteena ku raaligelinaa waa iska caadi, magaranaysa hantiile ma rabo inaan noqdo, magaca inaan ummad ku dhex yeesho ma rabo, inaan halaaban kara. haddii aad lacag yeeltid oo hantiile aad noqotid, ama ummadda aad ku dhex yeeltid magaci sharaf oo aad noqotid saaqid, ama aad hantidaas iyo magacaas iyo magaratay karaamadaas ilaahay ku siiyey aad ku kufrisid oo aad magaratay ku talax tagtid, taa kama dhigan inay lacagtu iyo magacii aad ku magaratay ay ku hadlaysay. lacagtii iyo magacii iyo awooddii uu ilaahay ku siiyey, ama leader hogaamiye noqo, waxay soo saartay wejigaada dhabta iyo waxa aad ahayd. marka haddii aad lacag yeelatid, iyo haddii aad magac yeelatid, iyo haddii aad hogaamiye tahay oo awood leedahay, awood yeelatid, ilaahay awood iska leh, oo aad ku tagrafaltid wixii, oo aad magaranaysaa birta ka ashid wixii kaaga dhow, iyo magaranaysaa macnaheeda ma ahan in ay lacagtu xun tahay, ama in magacaas ay xun tahay, ama in awoodda ay xunta maaha. waxay soo saartay wejigaada dhabta ah, markii hore waad baahnayd, baahida ku haysay. marka waxaad ka fikirayso oo aad ka walwalaysay maanta maxaa cunaa, beri maxaa cunaa, xaggeen ku hoyda. soo waxaa kartama laakiin maadaama ay baahash iskugu kaa toosto hadda, oo aad magac yeeltay, hantina yeeltay, magaranaysaa hogaamiyena aad noqotay, ama wadan aad gacanta ku hayso, maamulayso, ciidan aad leedahay, hadda waxaad xur u leedahay in ay soo saartid dhaqankaada, dabeecadaada xun, sababtoo ah baahida shalay jirta maanta ma jirta. marka dadka inta badan dhahay hantiile mar inaa noqdo, inaa magac yeesho ma rabo, waa lagu hadlaaba, lacagta kuma hadleynayso, waxaa tahay unbay soo saaraysaa. haddaad ahaan jirtay maskiin oo lacagtaas ilaahay ku siiyey, hantidaas iyo maalkaas ilaahay ku siiyey, aad ummadda masaakiinta ugu gargaartid, sadaqo ka baxsatid, waad awooddaa inaa yeesho. haddii kale inaad ku tagrafartid, magaranaysaa aad ku saaqida. marka niyadaada ka saar lacagta ma xuma, lacag dadka ma xumayso, dadka ayaga lacagta waxay soo saartaa qofku wuxuu yahay, lacagta waxay fashilisaa qofku wuxuu uu yahay, lacagta waxay qofka kasoo saartaa wejigiisa dhabta ah, magarata. marka adigana waa ogtahay, anna waa ogahay, ilaahi subxaana watacaala nu ogyahay, you are not here to be average. halkaan uma joogtid inaad ahaatid average, inaad ku noolaatid nolol magarata niman noolaan ah. dad waxaa jir ku qanacsan nolosha meesha ka joogaa maanta, haddii aad ka mid tahay dadkaas, good for you, adiga magartay maasha allah, garabka allah kale. laakiin waxaan la hadlayaa
dadka raba inay nolosha horumar ka sameeyaan oo ay lahaadaan hor u socod ay dhaqaaq sameeyaan fadlan beenta magartay aad naftaada beentii qiyaaliga aad naftaada ugu sheekeynayso oo adiga aad iskugu sheekeynayso iska saar hawsha u baahanta inaad qabatid magaraysaa 5 sano ka hor aad qaban kartay 10 sano ka hor aad qaban kartay 3 sano ka hor aad qaban kartay hasa ahaatee now is the perfect time to do it hadda waa xilliga ugu wacnaay ugu fiicnaay oo aad qaban lahayd waxba ka shalayn laakiin waa inaad ogaataa waqtiga kuma sugay cidna ma sugay adna kuma sugay adna ma sugay so fadlan be patient samar muuji ilaahay subxaanahu wa tacaala tus waxa inay kaa go-antay oo dhab kaa tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inaad tustaa that you are willing to pay the price inaad qiimaha bixisid haba yaraata qiimaha doonta ha ku kacdee so waxa garta ma ilaahay subxaanahu wa tacaala tustid that you are willing to be patient inaad waxaa samar muujinaysid in day out aad beertaas waraawinaysa adigoonan hubin inay soo bixi doonto in kala so waxa garta ma inaad godkaas qodi doontid inuu godkaas aad adigoonan hubin in dahab aad ka heli doonto in kala yani inaad lahaataa faith iimaan inaad qabtid inaad iimaan leedahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaratid aan ilaahay tustid waxaa inay kaa go-an tahay oo aadna diyaar u tahay inaad bixisid qiimaheed aadna sabar muujisid and put the effort hooshina aad qabatid sababtoo hore waxaan u dhahay haddii aad dib u fiirsid 5 sano ka hor waxaad qaban kartay 10 sano ka hor waxaad qaban kartay 3 sano ka hor sanad ka hor 6 bilood ka hor waxaad sameyn kartay oo aad qaban kartay oo aad dib u dhigatay hadda aad fiirsid waqtiga uu tagay qaba ama ha qaban adiga ku taal hawshaas laakiin cid ku sugaysa malaha qoraxdan cid ay sugaysa malaha time waits for no man waqtiga qofna ma sugay cidna ma sugay waxa gartama so was og tahay waxa bay hawsha u baahantahay inaad qabatid adiga is og confront yourself muraad ho istaag isfeeri so waxa gartama maxaa kugu kalifay inaad ka maraatiyso hawshan maxaa kugu kalifay inaad mar walba hawshan dib u dhigtid adigoo og inaad u baahan inaad waxaan samaysid adigoo og waxa inay ka saacidayso in aad hergelishid qorshayaasha iyo hadafyaasha aad ka leedahay nolosha adigoo og in haddii waxaan samaysid ay kaa saacidayso inaad hore dhaqaaq yeeltid hore u socotid maxaa kalifaya inaad dib u dhigtid haddana aad wixii rabtid inaad samaysid so fadlan beenta iyo qiyaali aad naftaada ugu sheekeynaysa iska daa hurdada ka kaca fadhiga ka kaca hoola kuu taal xilli lugaha aad iskula saartid lama joogo magarata hurdo waa ka dhigi doontaa nasiib waa ka dhigi doontaa laakiinse hadda waxaa la joogaa waqtiga aad gelin lahayd effort magaratay dadaal iyo samir iyo fara badan iyo waqtigaada aad gelin lahayd magaratay waxaan si aad u hergelisid hadafkaada iyo qorshayaasha aad nolosha ka leedahay waasaan sama maratid waa ogay inaad rabin inaad ku noolaatid nololaha dhimanaha noolaan ah aniga kula hadlay haddaad weydiisid qadar maanta ma rabtaa inaad maya kuma dhahaan bili-aadanka saa ah laakiin dadka inta badan qaarna waxay og yihiin oo ay aqbaleen in ay rabaan inay nolosha hor u socod ka yeeshaan kuwana waxay isku maaweeliyaan oo waa caadi waxaan inaan ku hadlaaba ka baqaa lacagtu inay haleysaan ka baqaa is okay ba iska joogaa si ay naftooda ugu qanciyaan inayn u baahnayn waxaan helaan balse deep down way og yihiin inay waxaan raalli ku yahin oo ay ku qanacsaneen balse naftooda ku qancinayaan man so fadlan hurdada ka kac fadhiga ka kac aad baadin salaama santiin khayr insha Allah dacabtin subscribe saar like comment ka bixir garay waxaan nabalana video kale khayr insha Allah hay salaam ku baax